السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا قيمها بدن كحرا جنال كامل تكنولوجي اسكو سو نقد وناكسن إن شاء الله تعالى maanta waxaan isla daraasay doonaa cashirkii sideedaad aynu ku baranaynay web design-ka qaasatan HTML iyo CSS. fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe noo saar channelka. cashiradii ka hor haddaad soo daawanin dib u soo daawo maxaa yeelay waxaa ku adkaa doona inaad fahantid cashirkan. إن شاء الله كفركayna maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa 8 cashir. ciwaankooda إن شاء الله waxaynu ku daraasay doonaa image element sida website-ka loo soo geliyo image. sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa hadduu alla idmo sida loo soo geliyo image link sawir u shaqeynayo link ahaan. sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa align and indent text with CSS sida fartayna aynu u sameyn lahayn indent space ama aynu u geyn lahayn dhaxda. sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa hadduu alla idmo thumbnail images sida loogu soo daro sawir thumbnail. thumbnail waxaa la dhahaa waa sawir yar oo markaad kilik siidid kuu soo muuqan doono sawir weyn. sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa background image sidaan website-kayna uu soo diri lahaynay background. sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa background repeat properties sida background-ka uu repeat markaas uu geliyo background default ahaan background-kaas wuxuu noqon doonaa mid repeat ah mid soo noqdo. sidoo kaleeto waxaan isla daraasay doonaa sida repeat-kaas u maamul lahayn background soo noqonaya. text properties iyo sidii farta wax loogu bedeli lahaa favorite icons iyo sidaan u soo gelin lahaynay icon website-kayna oo yeelo doono aynu isla socono. intaan hore ayaan usoo daraasaynay insha Allah maanta hore ayaan ka sii wadi doonaa cashirkayna ka sii gudageli doonaa. waxaynu isla bilaawi doonaa sida loogu soo darsado image. waxaynu soo kacsan doonaa Visual Studio Code. kadib markaanu image kusoo darsan doono horta waxaynu sameyn doonaa waxa la yiraahdo comment. waxaynu dhihi doonaa image hore ayaan usoo baranay sida loo saaro comment. highlight saar shift control qabo kadib backward dooro calaamadaas loo yaqaan dhahna backward. image ayaan dhihi doonaa image markaynu soo geli doono waxaan dhihinaa image kadib enter ayaan dhihinaa meeshan source ku qoran tahay waxaa geli doonaa image-ka magaciisa. image-ka anagu hadda noogu jiro waa kana waa amin png. waxaa muhiim ah inaad ogaatid extension-ka uu leeyahay sawirkaada ama image-kaada uu leeyahay. anaga image-keena magaciisa waxaa la dhahaa amin extension-kiisuna waa png. hodhow waxaa dhici karto inuu extension-kiisa ku ahaado gby ama jabad. sidee loogu bedelaa png-ga ama extension-ka? ugu horeyn asiga ku dul tag right click dheh kadib rename ka sii doono kadib waxaad jeceshaa ka dhigo gbg jabad dot waa inay ahaato. anaga hadda wuxuu noo ahaan doonaa kan bedeli doono png. hadduu wax kale kuu yahay sidaas ayaad ugu bedelaysaa. image ayaanu dhahaynaa source kadib image magaciisa ayaanu geli doonaa. image-ka hadduu kuugu jiro file-ka asiga ayaa automatic ahaan kuu soo qaban doona markaa magaca bilowdid. enter ayaan dhahaynaa. image waa garanay halahan waa image-ka. source-gan maxay tahay? source-gan waa attribute kaasoo noo sheegayo file name-ka. file-kayna wuxuu yahay waxaa noo sheegi doona source attribute wax la dhaho. alt attribute-na iyadana waxay noo taraysaa ama naga caawinaysaa sawirkayna inaan u sameyn karno description oo ah inaan sii karno qoraal. hadda waxaynu dhahaynaa sawirkayna waxaynu ku bixin doonaa faalo. sawirkayna muxuu yahay? amin. sawirkayna waa amin technology. loogada amin technology waa amin technology. hadduu yahay sawirkaada wax kaleeto description-ka bixi. haddii la waayo sawirku waxaa soo muuqan doona description-kan amin technology ah. weli waxaan raaci doonaa logo amin technology. waan save garay doonaa kadib waxaynu soo kacsan doonaa browser-ka intaan anigu hore ayaan isku soo daraasaynay
si aan u aragno marka resultiga iyo waxa aynu ku soo darnay waa inaan dooranaa refresh calaamadaas ayaa waxa loo yaqaanaa soo dhahnay refresh ama reload sidoo kale waxa dhigi kartaa reload waa kana sawirka aynu ku soo darnay sawirkan aynu ku soo darnay hadda waa image ahaan ma aha link ciwaankan labaad wuxuu noo noqon doonaa sawirka aynu ku soo darnay sida aynu ugu dhigi doono link waxaynu tagaynaa Visual Studio Code kadib waxaynu dooran doonaa waxaan dhihi doonaa eedaas waxaa la soo gaabiyaa ankaradan hore ayaan u soo baranay hajra fasiga aynu geli doono kadib waxaad geli doontaa inta fileka ama file ha gelin refresh hano hadana refresh aynu tagnaa refresh sidoo kale waxa dhihi kartaa ayaan soo dhahnay hashtag meeshan hashtag hadaa dhahno as refresh ahaan waa sidoo kale dad toos oo soo banaanka tagnana refresh waay hadda waxba ma dhihi doono kadib waxaynu sii dooran doonaa image ayaanu sii dhigi doonaa kadib waxaynu ku soo diri doonaa image-kayna waa Amin Technology ama waxa kale oo nagu jiro image kale oo lagu magacaabo bg kaas ayaynu ku soo diri doonaa waxaan doonaa bg dot marka dhahna soo buudi doona png waxaynu isla soo kacay doonaa browserka kadib refresh ayaynu dhihi doonaa sawirka aynu soo gelino waa kana sawirku waa weyn yahay sidee loo xakameeyaa sidee loo maamulaa waan isla arki doonaa insha Allah aynu u laabano Visual Studio Code editorka inta waxaynu soo dhahnay source ayaa loo soo gaabiyaa crc waxa loo soo gaabiyaa source waxay naga caawinaysaa file name halka alt loo soo gaabiyo ee tahay attribute naga caawinayo inaan u sameeyno sawirkan description hadda description samee doono sida ayaan u tagi doonaa waxaynu isla arki doonaa sida loo maamulo sawirkan soo jeedidba sawirkan hooso aad buu u weyn yahay waxaynu isla arki doonaa sida loo maamulo oo looga dhigo sawir yar sida kan oo kaleeto editorka aynu isku laaban doonaa kadib waxaynu dhahaynaa width waxaynu siinaynaa 100 pixel sidoo kale waxaynu maamul doonaa height-kiisa dhirirka iyo balaca ama jooga iyo jiifka asigana waxaanu sii doonaa 100 pixel waana save garay doonaa kadib waxaynu isla arki doonaa resultiga natiijada noo soo baxda isbedelka dhaca refresh ayaynu dooran doonaa soo jeedidba sawirkayna wuxuu noqday mid yar waxaynu ku maamulnaa dhahnay width iyo height 100 pixel aad ayuu u yar yahay waxaynu ku dhigi doonaa 200 waxa sii kartaa cabir alaala cabirkaad u baahato waa kala weynay kartaa isku midna waa ka dhigi kartaa anagu hadda waxaynu ka dhigi doonaa cabirkiisa ayaynu ka dhigi doonaa 200 ayaynu sii doonaa kadib refresh ayaynu dhihi doonaa soo jeedidba sawirkayna labadana sawir waa isgarab yeelay hore ayaa u soo baranay sida loo maamulo sawirkan sidee sawirkan kale u hoosgeynaa koodka ayaynu tagi doonaa halkan ayaynu waxa dhihi doonaa br line break loo soo gaabiyay refresh ayaynu dhihi doonaa soo jeedidba sawirkayni waxa hoos tagay sawirkii kaleeto waxaanu ku maamulnay br oo line break loo soo gaabiyo sawirkan wali aad u yar yahay waxaanu doonaynaa labada sawir inay isku mid noqdaan waxaynu ka dhigi doonaa 300 waxaynu isla arki doonaa resultiga mar labaad akaasa waxaynu soo gudbi doonaa ciwaankayna xiga sidoo kale sidee loo maamulaa line align am indent waxaynu maamuli doonaa sawirkan sidaan uu sameyn lahayn indentation waxa la space ka xigi doono leftiga ama right-ka dhanalaala mar alaala meesha ka maamushid ayuu mari doonaa had sawirkayna sidee loo geeyaa dhaxda editorka ayaynu isla tagi doonaa waxaynu ku maamuli doonaa css-ka markaaynu maamuli doono waxa hore u soo dhahnay waxaa jira waxa la dhaho selector hadda selectorkayna wuxuu noqon doonaa image
laakiin waxa noogu jirto laba image waxaynu hor u soo barnay waxa la dhaho div oo loo soo gaabiyo division waxa lagu maamulaa soo dhahnay waxay noo taraysaa inaan ku maamuli karno block qayb website-keena hadda div ayaan u sameyn doonaa divka markaan u sameyno waxaynu sii dhex geli doonaa class hore ayaan u soo sheegnay inuu magaca u doono inaan asigana qayb ka mid ah specific location wax ka bedeli karno class aan dhihi doonaa maadaama uu yahay sawirkayna koowaad waxaan dhihi doonaa image1 wayna save ayaan dhihi doonaa CSS-ka isla tagayna halaan ayaa ku bigareysanayna image1 CSS-ka markaynu tagno halaan hore u soo daraasaynay waxaynu sir saari doonaa comment xariiqaas iska saari doonaa soo xariiqaas soo muuqan dhibaato u keenin waxaynu saari doonaa comment markaynu saarno waxaynu soo guubi garaysanay image-ka ayaana control v dhihi doonaa laakiin waxa shardi ah maadaama ay yihiin waxaynu soo guubi garaysan doonaa ay class yihiin waa inaan ka hor dhignaa dotdaas waxay aqoonsi u tahay dhaanay class halka ID-ga uu ahay hashtag kadib qoys ayanu furi doonaa horta waxa muhiim ah ogaano shaqada ay qabna sawirkan waxay geey doonaa hadduu alla idmo dhaxda kadib waxaynu dhihi doonaa text align center waan isla save garay doonaa refresh ayanu dhihi doonaa soo jeedidba sawirkan waxa geynay dhaxda sidoo kaleeto sawirkayna kaleeto meeshiisa noo yaala maadaama aan baraat gareynay sawirkan inaan dhaxda geey karno kan hadda dhaxda geynay kana waan geey karnaa marka shardi maaha inaan kan dhaxda geyno waxaan dhaxda ku geynaa dhaanay waxaynu soo dooran doonaa waxa lagu magacaabo selector-kayna wuxuu ahay waxaynu soo sameynay class lagu magacaabo image1 ayaan soo dooran doonaa oo ah noo ah selector kadib waxa dhihi doonaa saan dhaxda u geyno text align center intaas ayaan dhaxda u geyno ciwaankayna xigo sidee loo soo geliyaa thumbnail image waxa la dhahaa sawir yar markaad kali ku siiso noqon doona sawir weyn Visual Studio Code ka aynu soo kacsan doonaa HTML aynu tagi doonaa CSS wax ku qori doono waxaynu dhihi doonaa kadib anchor element kadib waxaynu geli doonaa sawirka magaciisa sawirka anaga noogu jiro waa aamin dot marka dhana soo biyo doona technology kadib waxaynu dhihi doonaa image kadib isla sawirka aynu magaciisa geli doonaa kadib waynu save garay doonaa kadib waxaynu dhihi doonaa refresh waa kana sawirka aynu soo gelinay waa yar yahay balse marka kali ku siino sawir weyn ayaa la rabaa inuu noo soo baxo afwan sawiradeena waa dhaxayacsan yihiin aynu kala maamulno waxaynu ku kala maamuleynaa soo dhahnay BR sidoo kale to kana waxay dhihi doonaa kan BR uma baahna waa kana sawir yar waa in markaynu kali ku siino wuxuu noqon doonaa sawir weyn waxaa lagu magacaabaa soo dhahnay thumbnail image haddaad doonaysid sawirkan inuu wax yar ka sikayo sawirkan waxaad isticmaali doontaa BR ta ayaa badi doontaa hadda waxaynu soo dhahnay kaliya 1 BR laakiin BR ayaa badi doonaa aynu salaarna resultiga waxaynu filaynaa inay soo baxdo sawirkan inuu sawirkan kala ka sikayo space inta ugu tala galna waa kana sidoo kale to background image sidee website ka inaan background dhan hadda waxaynu soo gelinaa sawir kaliya laakiin background dhan sidee loo soo geliyaa cashirkii nagu dheeraa doonimeen insha Allah gacanta waan fuday doonaa aynu isla socono markaynu soo gelinayno background-ka waxaynu tagaynaa CSS-ka kadib waxaynu dooran doonaa selector-kayna wuxuu noqon doonaa badiga ayuu noqon doonaa badiga ayaan rabnaa inaan shaqo ka qabano kadib waxaan dhihi doonaa background image ka soo geli doono wuxuu noqon doonaa URL la dhehaysa horta
background image marka dhahday marka background soo gelis URL wayna dhahdaa kadibna aad soo gelidaa sawirkaad u baahan tahay sawirka anaga u baahanahay waa dg aan soo dhihi doonaa dot bg.bng save aan dhihi doonaa soo jidid baa noo qurxinaya background-kayni xawankan xigana wuxuu ahaa doonaa background repeat background-kan aynu soo gelin hadda oo soo noqonaya sidaan u maamul doono background repeat ama repetition waxaynu tagi doonaa css-ka background-kan haduu soo noqdo waxaynu dhihi doonaa background repeat kadib no repeat ma doonayno inuu background-kan soo noqdo background aynu soo gelinay sida fit looga dhigaa ama loo leekaysiyaa dhammaan website-ka css-ka aynu tagi doonaa kadib waxaynu dhihi doonaa background size cover background-kayna waxaa leekaysiyaa coverka dhammaan ayaynu dhihi doonaa kadib refresh ayaynu dhihi doonaa sida ujeedidba hadda background-ki wuxuu leekaaday coverka oo dhan sidee loo soo saartaa website-kayna icon website-kayna icon waxaa laga rabaa icon bartaas ayaa laga rabaa html korkeeda waxaa ku qoran map oo ah wall dunida mapkeeda ayaa saaran meeshaas waxaynu doonaynaa inaan soo gelino meeshaas sawirkayna waxaynu tagi doonaa html-ka ayaynu tagi doonaa waxaa muhiim inaad ogaatid iconka waxaa lagu qoraa headka ayaynu tagi doonaa waxaynu dhihi doonaa linki waxaynu tagi doonaa ugu horreyn head sectionka ayaynu tagi doonaa kadib waxaynu dhihi doonaa linki style sheetkan ayayna waxaynu dhihi doonaa icon waxaynu kusoo diri rabno waa icon markaynu dhahno hajarafkan ayayna waxaynu geli doonaa iconka magaciisa hadda iconka magaciisa noogu jiro anaga waxa waaye aamin technology kadib type ayaan u samayn doonaa nuuciis muxuu yahay type image waxaynu soo geli doono /x kadib waxaynu dhihi doonaa icon sidee loo soo geliyaa icon waxaan dhihi doonaa link rel icon hajaraf aamin oo ah loogadii typeka nuuciis wuxuu yahay aamin image ayuu yahay x coordinate icon soo jididba waa kaasa waxaynu soo gelinaa hadda ayna soo dhaweyno cafwan hadda waxaynu soo gelinay icon ayaan soo gelinay insha allah cashirkan maanta ayaynu wakaa doonaa fadlan haddaa intaa nala soo gaartay subscribe noo saar cashiradii ka horey haddaadan soo daawanin dib u soo daawo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh